ururka horumarinta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Soorasor ayaa diraya baaq nabadeed oo ku wajahan colaadaha dhawaanahan ka soo cusboonaaday gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo. Injineer Idris Xasan Faarax oo ku hadlaya magaca ururka Soorasor ayaa waxa uu bulshada deegaanadaasi ka codsanaya in la joojiyo colaadahaasi isla markaana lagu xaliyo si nabadgelyo ah waxyaabaha la kala tabanayo. Haddaba baaqa injineerka waxa uu dhacayaa sida tan. waxaan halkaan baaq ooga diraynaa dadka ehelka ee ku nool gobolada Gedo iyo Jubbooyinka dagaalada ka soo cusboonaaday ama maxaan ku raahdaa gacanka hadalka ka taagan magaalada Balad Xawo iyo nawaaxigeeda waxaan ku baaqaynaa oo aan u soo jeedinaynaa dadka damiirka u saaxiibka ee ku nool goboladaas inay joojiyaan dagaalka gobolkaas ama gaar ahaan magaalada Balad Xawo intay dagaal ku jirtay wax xasuustaan. sidoo kale injineerku waxa uu ka warbixiyay mashruuc ay ka fuliyeen gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo oo ku saabsan iskuul ardaydu ay dhigtaan kaas oo lagu magacaabo waa bari iskuul Balad Xawo. anagu ururka Soorasor wuxuu iskuul waa bari buu gacanta ku hayaa hadda waa dayactir baan ku sameynay asagoo dagaaladii ay burburiyeen 550 arday dhigato haddii dagaalku meesha ka sii socdana ardadaas wax ma baran karto horeyna arday wax baranaysay ma jirto iyadoo magaaladu buuxdo oo dadku ka badan yahay ayaa haddana wax baranayo ama wax baran kara ayna jirin dadka magaalada ku nool populationka ama ummadda magaalada ku nool waxaan ugu baaqaynaa inaanay aqbalin in maalmo dushooda lagu diriro oo ciyaalkooda la qaxiyo oo ay adduunka ka haraan oo gobolada Soomaaliyeed ka haraan wax faa'iido laga helay lama arko ummadii baa ku baabaaday goboladii Soomaaliyeed oo kale waad ka harteen waxbarashadii baad kaga harteen horumarkii baad kaga harteen inaad maanta xilli maartay la toosay oo goboladii Soomaaliyeed maadaama uu dhulkii wada burburkii goboladii kala saameeyay adinkana isay maanta ugu liidataan waa wax laga naxaweeye ummadda inta garaad kale ka hortagto waxaas shacabkuna gacmaha hays qabsado culumada maartay garadka hooyooyinka dhammaan waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in degdeg loo joojiyo. baaqan ku wajahan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo oo ay dirayaan ururka Soorasor ayaa guud ahaan waxaa laga codsanayaa waxgaradka iyo waliba siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladaasi ay tixgeliyaan inay ku soo dabaalaan nabadgelyo isla markaana xal waara laga gaaro khilaafka soo noqnoqonaya. horeyba Soomaalidu waxay ugu mahmaahday nabad baa naas la nuuga leh nabadda laga shaqeeyo. Maxamed Bashiir oo Maxamed Helsinki Finland.